kulanti wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin hayaa war degdeg ah oo waliba la yaab leh 6 bilood kadib bishiis ku noolaan lahaa isaga si raasad wallahi oo billahi oo tallahi inaan la siiga heli doonin waa dhaartay hadduu America tago qofkada lacag u aruursaday anuga macluumaadii hadduu lacag u aruursaday hadduu America tago ugu daba tagaya dacwo ku soo oogay hadduu Europe gal meeshaas gal waa ku soo oogaya hadduu Shiina tago waa ku soo oogay magaca hadii bedesho magac kale isku dhiiba xataa waa liisoo sheegay niqar Soomaaliya ma waa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena kamid ah xubnaha muhiimka ah ee xisbiga Himilo Qaran sidoo kalena kamid ah xubnaha ugu firfircoon ee sida weyn oo ugu tashado madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu si toos ah u sheegay haddii xukunka dalka ay ku guuleystaan in ay ka takhalusi doonaan rag uu kamid yahay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir taliya Macalin Mahdi oo uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ama weerarkii mucaaradka lagu la qaaday saldhigga booliska degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir inuu ka dambeeyay waa markii ugu horeysay oo nin mucaarad ah uu ku hanjabo ama koox mucaarad ay ku hanjabto in haddii kursiga ay koraan ay argoosan doonaan sidoo kalena ay leyn doonaan dadkii dhibaatada u geystay intay kursiga raadiska ku jiraan ku darso Sheekh Shariif waxa uu kamid yahay ragga ugu cadcad ee loo saadaalinayo inuu madaxweyne ka noqon karo Soomaaliya inkastoo ay jiraan rag kale oo fara badan oo kursigan u hanqal taagaya sidoo kalena saameyn xooggan ku leh gudaha Soomaaliya haddana ninkan lama dhayalsan karo hadalkanina hadal fudud maaha waxay sheegeen inaysan uga harad doonin arintan sidee waragtaa muuqaalka waxaan ka codsanayaa inaad meel dheer gaarsiiso like aad saarto shiina share gareyso janaalkeena hadad ku cusub tahay ku soo biirto sidoo kalena aad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga igula wadaagto hadalka xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ma yahay mid sahlan mase maaha sidoo kale waxaad ila wadaagtaa xubnaha mucaaradka inay ku hanjabaan in raggii dhibaatada u geystay ay ka aarsan doonaan kana aargudan doonaan dhibaatadii ay u geystaan ay ku abaal mari doonaan oo xitaa ay maxkamada soo taagi doonaan sidee waragtaa aragtidaada xor ayaad u tahay qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb muuqaalkana like saar sii share garay haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho xogaha iyo update-ka aan halkan ku soo gudbino aan ku bilownay ninkan hadlaya waa xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka sidoo kale waxa uu kamid yahay xubnaha sida weyn ugu dagaalama madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo waxa uu kamid yahay xubin muhiim ah ka yahay xisbiga Himilo Qaran ee madaxweyne Sheekh Shariif oo gudoomiyaha ka yahay sidoo kalena musharax uu ka yahay haddaba xildhibaan Daahir waxa uu si toos ah u sheegayaa inay maxkamad soo taagi doonaan rag uu kamid yahay taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo uu ku eedeeyay inuu ka dambeeyay weerarkii mucaaradka lagu la qaaday saldhigga degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir maalinnimadii Arbacada ahayd ee taariikhdu ku beegnayd 24kii bishan September hase yeeshee waxa uu sheegay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso xitaa haddii uu magaca bedesho Europe iyo America uu tago taliya Macalin Mahdi in xukunka dalka haddii uu ku guuleysto waa xisbiga Himilo Qaran ama madaxweyne Sheekh Shariif oo asugu xisbigiisa kamid yahay inuu ka qaadi doono tallaabo sidoo kalena ay la xisaabtami doonaan maxkamadda awoodda u leh ay soo taagi doonaan wixii uu mucaaradka u weeraray sida aad la wada socoteen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ciidamo ka amar qaatay oo xilligaas saldhigga ku sugnaa ayaa ku wada dagaalamay halkaasi waxaana xabadi ku dhacday gaariga proofka oo wato madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed si lamida waxa gaari laga gubay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo halkaas lagu dilay nin staff u ahaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre mucaaradku waxay sheegeen arintaas in la isaga harad doonin oo ay aarsan doonaan dhibaatadii loo geystay inkastoo dawladda Soomaaliya ay sheegtay waa booliisku uu sheegay in mucaaradku ay bilaabeen rasaasta oo kadib ay bilaabeen ciidamada booliisku inay isdifaacaan haddana mucaaradku waxay sheegeen arintaasi oo ay ka galgalanayaan eedaha dawladdu ay ka galgalanayso inay tallaabo qaadi doonaan sidoo kalena ay argoosan doonaan waa markii ugu horeysay oo la arko siyaasiyiin Soomaaliya oo banaanka jooga xukun raadisna ah sidoo kalena doonaya inay xukunka filla Soomaaliya ku fadhiistaan oo sheeganaya inay argoosanayaan waa mucaaradka oo ay arintaas ku cusub tahay ku darso oo raggani waxay ku cadcad yihiin inay madaxweyne noqon karaan sababtoo ah xilligan ma muuqato wax badan ayaa isbedeli kara laakiin rajadooda marka la fiiriyo aad ay u wanaagsan tahay
hadalkan marka dhibaato mu ku noqon karaa oo rag cugdada haysamo loo qaadan doona sidoo kale hadalkan faa'iido mu yahay oo dambiilayaal badan oo dadka dhibaateeyay hadii ay yihiin dad wax la xisaabtamaya dadku ma dooran doonaan sidoo kale waxay ballan qaadeen xisbigan iyo tiimkiisa oo Sheekh Shariif hogaamiyo in ay soo celin doonaan dhammaan dhulka hantida danta guud ee dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee kooxda ganacsatada ah ee maafiyada ay gacanta u gelisay sidoo kale waxay sheegeen in dhammaan raggii dhibaato u geystay intii ay banaanka joogeen ay ka argoosan doonaan lama ogo in Sheekh Shariif oo la qabo ninkan laakiin waxa uu ku hadlaa un xisbiga oo uu ka tirsan yahay oo xubin muhiim ah ayuu ka yahay waana markii ugu horeysay waxaana muuqata in la cabsi gelinayo ragga xilligan dawladda ka tirsan ee gaboodfalada ku kacaya digniin ayay arintan u tahay maadaama ay ka mid yihiin raggani kuwa ugu cadcad kursiga ku guuleysan kara inay ka fogaadaan inay dhibaateeyaan sidoo kale arintani waxa ay hor istaagi doontaa gaboodfallo badan oo kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay kula kacdo dadka markaasi dibad jooga ah ee xubnaha mucaaradka ka tirsan oo ay in muddo ah qaarkoodna la xirxiray qaarkoodna si kale loo dhibaateeyay digniin ay u tahay oo qofkii nan dhibaateeya annaguna waa ka argoosan doonaa haddaan xukunka ku guuleysano waa hadal cad oo aan meel loo dhaafan lahayn aragtidaada daawada hadalkan dhaawac ma ku yahay xubnaha mucaaradka gaar ahaan himilo qaran iyo madaxweyne Sheekh Shariif maadaama Daahir Amiin Jeeso uu ka tirsan yahay xisbiga himilo qaran ee madaxweyne Sheekh Shariif xubnaha muhiimka ahna uu ka mid yahay sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka ah ma la qabaan aragtidaada waa inuu muhiim qaybta hoose ee commentiga maxaa la dhihi karaa macallimahadi xagee u baxsan doona maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu kursiga isaga tagayo oo la hubo oo shaki ku jiro inuu soo laabto dabcan waa laga yaabaa laakiin aakhiran waa isaga tagaya waxaana lagala wareegi doona waana laga xisaabtami doona waxa uu ku sameeyo mucaaradka ee loo adeegsanayo ee dadka lagu dhibaateynayo inkastoo Xasan Sheekh markii uu ololihiisa doorashada soo galiyay oo sheegay inuusan qof ka argoosan doonin haddana arintaasina ay u noqotay mid uu kursiga filla Soomaaliya kula guuleystay haddana mucaaradka xilligan jira waxay leeyihiin waa hanjabayaan oo waxay leeyihiin annagu ma aqbali doono ugamana kacan doono in la dhibaateeyo kadibna nala joogo magaalada Muqdisho aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reeb markana waxaad ila daawataa wareysiga xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo dhameystiran arrintaas waxay ku timid wada hadal xalay ay galeen golaha samata bixinta iyo muxuu odayaasha dhaqanka ay ku timid sida leegu yiraahdo waa ka maqanay dalka marka waxaan maqlay in ay muddo asbuuc dib loo dhigay oo muxuu ahaa 9 beri kadib la qaban doono marka arrintaas saasan u maqlay idankan dabcan wadanka joogtiin oo aad maqasheen xildhibaana dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin mucaaradkii dawladdu way ka iltaal roonaatay maadaama banaanbaxoodii la baajiyay arrintaa ka waran waxaas waa sheeko waa ku sheegay wada hadal ay ku timid arrintaas shacabka Soomaaliyeedna annagu sideedaba shacabka Soomaaliyeed waa wax mudaharaalay oo annagana aan lana xaqiin u doodo muxuu ahaa laakiin wada hadal ay ku timid shacabka Soomaaliyeed diyaar waay qaar hadda iyagoo non organization iska mudaharaado laakiin waxaan ku sheegayaa wax laga itaal roonaaday wax kale midna ma jirto wixii hadii ay itaal roonaanay caburin ma lagu aamusi mase imaamkii iyo ogaaskii dadkii xalay cimaamadaha geey ayaa lagu muxuu ahaa lagu baajiyay maanta ii sheeg adiga marka idinka handaadii saxaafadda waxyaabaha aad nooca hadalka sida u dhigaysiin idinka qaldan sida u dhigaysiin idinka qaldan hadalka sax la iweydi markaas aan kaaga jawaabi karay xildhibaane su'aal roonaaday iyo xalay saxdaxa lagu gaariyo oo muxuu ahaa la baryay muxuu ahaa golaha mutafixinta la baryay ii kala saar adig hadafkiinu hadduu ahaa xildhibaan Daahirow hadafkiinu hadduu ahaa inaad shacabkii soo hor istaagteen oo aad tiraahdeen berri oo sabtiiba 3 meelood laga mudaharaadaya ma hadafkiina inaad ku dhaganaataan soo ma ahayn oo kadib aad wada hadal gashaan walaalo waa fiicneed laakiin ogow odayaasha dhaqanka respectigooda ay leeyihiin muxuu ahaa shuruudo badan jira waxa la isku haysto waxa waaye hantida qaranka yaa la boobin dad shacabka yaa la barakicin waxyaabaha mudaharaadkii lagu baajiyay inaan xataa
hal boos qof laga gedi karin hal boos aan qof reer baalada bala gelinaynin ilaa mudaharaadkaada iska dhacana waxaaba yaraatee tilaabo ay qaadi karaan dowladda federaalka muxuu ahay madaxweyne xasan sheekh oo madaxweynaha ka yahay ma jirto anaa kuu sheegay wadahadalaa lagu gaaray annagana hadda dadka warka diida oo inyoon besi soo taagan mani dad waxaan nahay ogol xaal mastuur ogol u dhaqanaya dalkooda ogol in muxuu ahay ummaddan la samata bixiyo xasan gadaashiisaan rabnaa dowlad soomaaliyeed inay sii jirto marka odayaashii dhaqanka ee musharafiinta hadday ay yimaadeen ee koofidoodii intay miiska saartay ay dhaheen anaga tilaabsanana 9 bir dib ha noogula dhigo 9 bir waxay u soo kordhaya xasan sheekh asaay qaadi ciidan meel jira askeenayo dabcan anagu waxaan tuumaynaa in 9 bir xataa xasan ascodsaday odayaashii loo soo dhiibiyaan tuumaynaa laakiin haddiiba ay dhacdo wax ugu soo kordhayo malaha annagu waxaan taaganahay mudaharaad haddaad maqasho waa dastuurkay ku qorantay waan gartay intaanan xabad ka ahayn xalka waa ku raadinaynaa waad ogeedeen sheekh shariif sheekh axmed oo dhahaya xabad yaan la ridin yaanan loo jawaabin asagoo xabad ku socota idinka saxaafaddaad tihiin weliba meelahaad carcaraysa oo luuqyadaad gelgelaysaa markay xabadda lasoo ridaye waad og tihiin sheekh shariif iyo badasha uu hogaamiyo dagaal ma rabaan dhiigooda ku daato laakiin haddii laga fursan waayo gacmaha baruur ku wadan xildhibaane laga fursan waayo gacmaha baruur ku wadan xildhibaane wixii ka dhacay saldhigga degmada warta nabadda dadka arrimaha la socda waxay leeyihiin fidnadu waxay ka bilaabatay mucaaradka oo aan booliiska ogeysiin in saldhigga la tegayo mas'uuliyaddu wixii halkaa ka dhacayna daahir amiin jeesow shariifka khayre iyo rooble ayaa qaadaya waxaas sheeko waaye iska hadlow inay gare warka qofka moogtahay af qoyan waxaas sheega ma waayo ninkii asaga xidigta u xiray macallimahadii ninkii ugu horreeyo xidig u xiraa waa sheekh shariif waa maqlaysa inaad 20 sano ka hor hasi qalbi waa waxa uqdadaysanaa xilkii dowladda loo dhiibay ninkii asaga ugu horreeyay sargaal ka dhigay ayuu xabad ku bilaabay oo president oo musharrafkii waddanka ayuu xabad ku bilaabay marka inuu hadda iska masabita daahir jeesow oo joogo meesha la yiraahdo muxuu ahay maraykan joogo inuu iska masabito yiraahdo muxuu ahay dadkaas mas'uuliyadda qaaday hadda waxa waaye af qoyn hadal ma daaye wuxuu doonaa iska sheegtaa 6 bilood kadib bishiis ku noolaan lahaa isaga sii raadsan wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan la siiga heli doonin waa dhaartay hadduu America tago qofkada lacag u aruursaday anugaada macallimahadii hadduu lacag u aruursaday hadduu America tago uu daba tagayaa dacwo ku soo ogaay hadduu Europe galo meeshiis galo waa uu soo ogaaya hadduu Shiina tago waa ku soo ogaay magaca haddii isbedesho magac kale isku dhiiba xataa waa lii soo sheegay ni qarsoomaay ma waxa u roon asoo maanta dambi waaba galay cafis weydiisto ummadda Soomaaliyeed muxuu ahay oo tacadiga ku sameeyay wuxuu u dhaqmay sida askari calooshiisu shaqaysta oo dibadda laga keenay camal oo u dhaqmay sida loo garaacay waa arkaysan odaygiisa kaasi jirka imaamadii oo lagu finay waa arkaysan badar la shukulaayo camal inay dhinacyada ka maraan tig aysiya sawirkaas weligiis uu yeelaya macallimahadii uu ku shaabadaysiya waan gartay 9 bari kadib waxaad iclaamiseen mudaharaadkii inuu dib u bilaabanayo haddii dowladda xasan sheekh maxamuud ay mar kale idinka hor istaagto inaa mudaharaadaan oo shacabkii ay soo baxaan maxaa tallaabo oo xiga xildhibaane waxaa tallaabo oo xigaya in shacabka Soomaaliyeed cabashadooda ay muujiyaan muxuu ahay xuquuqdooda ay u doodaan in muxuu ahay dhammaan dhulka la burburiyay dadkii laga kaciyay lacag la'aan loogu cabiro lacag la'aan in loogu cabiro hadafkayna waxa way dadkii laga kaciyay daawada dadkii gahayr laga kaciyay dadkii Siinaay laga kaciyay dadkii laga kaciyay Oodwey dadkii meel walbo oo
dhulalka horta sideedaba ma ogtahay adiga dhul waxaa iskale shacabka waxaana u maamula dowladooda maamul marka waxaa la rabaa maamul cadaalad ah nin taajir oo multimillionaire ah ka gadaya adigoo aan quraacan karin oo qadayn karin waa ka kicinaya cadaalad ma mar hadday saas noqoto dhulka shacabka iskale ma aragteen sabar looga ay ku qoran tahay dowladda federaalka dhulka ay ku qoran tahay ma aragteen sharciga dhulka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka shaqeysa aniga guddiga arrimaha gudaha la xisaabtanka kule ayaan ka tirsanahay dhul waxaa iskala shacabka lacag la'aan waa in loogu cabiraa haddii dowladda ka maarantay danta guud dhulkii ahaa walow aan ogahay wasaarada qaarkood ijaar inay degan yihiin dhulkoodina ay ku qoreen waa ka maaran taas waa laga xisaabtami doonaa xataa wasiirka lagala xisaabtami doonaa hadday ka maarmeen oo rusheegay shacabka xaq u leh kuwa degan ha lagu meeleeyo ha loo cabiro waa tahay xildhibaan aad baa mahadsantahay waxaan kala ka baxa shacabka Soomaaliyeed oo aan rabay inaan la hadlo waxaa weeye ujeedinayno waxaa weeye dhulkiina inaad soo noqotiin warshadii daawada lagu soo noqdo geeyir lagu soo noqdo dayni lagu soo noqdo bilaaji carab suuqeeda asaado meesha la yiraahdo Sinai oo noqdo suuqyada adduunyada fiir hore u martay suuqyada ay hore mariyaan annagana suuqyadeena aan gadooyna markaas waxaa la rabaa bilaaji carab oo xilligiisa ciid barqis lagu ganacsanayo inta la baabi'iyay magaalada tag meel xataa miisir la dhigta malaha guryaha waa isoo wada saariin suuqi kaliya ay laayeen nima liir kunaax adiga galo wallahi kaas lacagtiisa dhumays ana ku iritaas waa tahay hada ma san inta ay nagu jirto in hal xero oo ciidamada ay lahaayeen hal wasaaradood gurigeeda la gado lagu nasto waa anagoo dhan inaan la rago oo nala baabi'iyo waa tahay shacabka Soomaaliyeed ma sagaal biri kadib ha uu soo baxaano xuquuqdooda u doodaano dhulkaas anaga waxaan naga goon dhulkaas iyaga la siiyo oo loo cabiro dowladda ma ka maaran shacabka degan loo cabiro wax kale oo naga goon ma laha shacabo intaas noogu hiiliya annagaba idinkaan idin hiilinayna waa mahadsantahay xildhibaan aad baad mahadsantahay